qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho waxaa ka bilowday barakac xooggan oo ay sameynayaan dadka deegaanka kuwaasi oo ka cabsi qaba inay waxyeelo ka soo gaarto dagaalada ka soo cusboonaaday gudaha caasimadda. Shacabka ku dhaqan degmooyinka Hodan, Howlwadaag iyo Warta Nabadda ee gobolka Banaadir ayaa xalay iyo saakay bilaabay inay isaga hayaamaan guryahooda kadib markay ciidamo taabacsan mucaaradka ay ka sameysteen xaafadda Siigaale ee magaalada Muqdisho. Xaafadaha laga soo qaxay ayaa waxaa ka mid ah Taleex, Siigaale, Shanta Geed iyo xaafadaha ku agdhow isgooska dabka ee magaalada Muqdisho. Dadka deegaanka ayaa bilaabay inay u guuraan xaafadaha kale ee ka caagan dhaqdhaqaaqyada sida degmooyinka Wadajir, Dhankiiley, Kaxda iyo duleedka caasimadda. Inkastoo ay wada hadallo socdaan ayaa haatan waxaa jira abaabul xooggan oo ay wadaan labada dhinac kuwaasi oo haatan isku biro tumanayo. Muqdisho ayaa xaalad dagaal gashay kadib markay caasimadda gudaha u soo galeen ciidamo diidan muddo kororsiga loo sameeyay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaasi oo qabsaday qaybo ka mid ah gudaha magaalada Muqdisho.